okay wiilka ma markaasaa baratay mise hore baa u taqaanay may markaasaan barta wiilka magaalada wadanka waa safartay wadanka aad joogtay ka tagtay wadan kala tagtay markaasaa wiilka meesha isku barateen waa idinkoo sheekaysan oo isbaranaya ayaa aroos laga cazumay adoo meesha jooga ها marka arooska goorta aaday arooskii meeshaasaan isku baranay kadib wuxuu igu dhahay gurigan kuu kaxaynayaa guriga ku geynayaa micnaheedu waxaan ku idhaahday guriga kugu sii tuurayaa ma arooska isku barateen mise markaa isbarteen kadib aroosi gey ku dhahay may arooska isku barana okay ha arooska isku barateen haye marka kadib waxaan ku idhaahday waan gurigii aan tagnay wuxuu ku dhahay gurigan kusii geynaya xaafadda kugu sii tuuraya kadib waxba ii soo gaday oo dadka maaragtay ku sarqaamayaan oo miirku ka tagayo okay markuu wax kuu soo gaday ilaa arooskii waa ka timaadeen ma macmeel cabitaan baa soo marteen ma adigii baa dheeraad ay ahaay ma kafay baa la aaday ilaa arooska sugan ku dhamaasho sida aniga waa aroosada waagaan tagi jiray aroos markaan ka soo baxay waxaan soo mari jiray meelaha kafeeyaasha waa la yaqaana Soomaali maya wiilu ninku shukaasana wuxuu ku leeyahay nabixi magdoonarka ku marinay ahaya cabitaanka ugu hore ana ku soo gadaya masaas baa lagu shukaasaday haye warkay wad wixii soo gaday cabitaan buu soo gaday animaan ogeyn inuu wax ku soo daray in kale kadib marka cabitaanka aan cabay baa igu dambeysay inaan miir dhan bay igu dambeysay kadib wuxuu keenay xaafadiisa markuu xaafadiisa keenay wuxuu iga duubay filin aniga oo maaragtay aan hayn qof maaragtay bahalkii ah kadib hadhow waxariis markii ugu horeysay uu arooska ka soo waday uu guriga ku geenay uu gurigu rabo inuu ku keeno ayuu cabitaan ku soo gaday waxba kugu daray markaas miirkii igu dambeysay inaan guriga imaaday baa miirkii igu dambeysay haye laakiin guriga markaa soo galaysa miir ma qabtay waa ogaan inaan guriga gelayo ha okay haye marka kadib wuxuu iga duubay filim buu iga duubay goorta filimkii waxaan ku idhaaday iga duubay kadib maan ogeyn uu iga qariyay kadib ayaan kadib baysay wuxuu igu dhahay moogtahay xiriirkeena ani adiga inuu maaragtay uusan dhamaan karo maxay tahay xiriirkaani adiga naga dhaxayn kara in yar wax halka istaag ninka markii cabitaanka cabtay wuxuu rabo uu ka samaystay subaxdii waa soo kacday ma gurigiisa ka soo kacday okay maxaa samaysay waad baxday gurigii gabadhii saaxiibada ku soo dagootay ayaa aaday okay ninkii telefoonka kala bedelateen waa sheekaysateen waa isfahmi weysay markii dambe saas u fahmay sheekada oo saakana igaga sheekaysay markaan ku yiraahday isfahmi weynay banaankaas kala marayna biigu yiraahday waxaan ka hayaa intaasoo fiidiyowyadii ba ii soo diray mise waa anigoo qaawan oo maaragtay waxaan ku yiraahday aan dharba inta badan aan dhar qabinba haye kadibna wuxuu igu dhahay meel kasta adduunka baa soo dhigayaa sawiradan haye Daisy waa ku salaamay darling soo dhawow haye haddii aad xiriirkayga aad bacdina goysid iska jir sawirada meel walba soo dhigayaa sawiradan waa soo dhigayaa meel walba haddii aad xiriirka kugu haysaa xiriirka waa kugu qasbay haye hadda xiriirkayga goysi xiriir ani adiga xiriirkayga bacdina goysid iska jir sawirada meel walba soo dhigayaa okay haye maxaa samaysay markaa adigu kadib waxaan sameeyay sawiradii goortaan arkay waxa maan qaban karin waxaan ku idhaahday maxaa rabtaa dhowr jeer buu isku dayay inuu maaragtay baalkiisto kadibna markii dambe booliis baa akhirkii la xiriiray haye booliiska baa hadda ka warsugaya okay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku daawanaya horta ninka intuu joogaa Norway intuu ka degan yahay Oslo magaciisa ma taqaanaa Abshir baa lahaa Norway uu degan sawirkiisa waa ii soo dirtay waa arkay telefoonkiisa waa hayaa saaxiib waxaan ku leeyahay saakina waan ku soo wacay waxa igu tiraahday maxay tiraahday saaka markaan wacayno muxuu dhahay umada u sheeg ma ku fahmayo waxa ka hadlaysiin waa kaas waxa ka hadlaysiin ma ku fahmayo aniga iyada qadka ku jirin anaa ku xiray waxdan ba soo qor okay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku daawanaya
gabdhaha Soomaaliyeed ee ku daawanayo maxaad ku oran lahayd waxaan ka oran lahaa in iska jira nin walba aad baranaysaan intuusan dhibaato inay geysan iyo noloshiina wax ku saabsan iusan maskaxdiina u dhaawacmin haye waad mahadsan tahay abshir saaki baan ku soo wacay telefoonkaada waa haya ogaa wadan inaan joogno indhaha noo furan yahay oo sida inaad dhex fadhido waan ogahay adreeskaaga hayaa baabuurka taksiga nambarka hay ya taksiila baa tahay 4 nambarkaaga baabuurkiisa hayaa everything baan hayaa booliiskii bay u gudbisay gabadhan waa lagu dacweeyey ballan waxaa lagaaga qaaday adiguna Australia joogto warqad booliis inay ku imaanayso anigu iyo adigana si gooni aan wada hadlayna hadda diiday inaan kula hadla waa diiday inaan islaanimo Soomaalimo kula hadla saaka si wanaagsan baan ku soo wacay ilaahayna marqaati buu ka ahay gabadhan telefoonka ku jirtana marqaati bay ka ahayd haddana ilaahay waa marqaati waa kay anigu been iguma imaanaysa anigu runta iguga imaanaysaan marka waxa waaye si islaanimo aan kula hadlaysaa waxa igu tiraahday